ciidamada difaaca dawladda Puntland cutubiyadooda kala duwan ee gobolka Sool ayaa diyaar garowga ugu dambeeyay ugu jira sida ay u soo celin lahaayeen dhammaan xuduudaha Puntland ee gobolka Sool kadib markii madaxweynaha dawladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo amar buuxa ku siiyay saraakiisha ciidamada difaaca Puntland inay gutaan waajibkooda qaran isla markaana sidii lagu yaqaanay ay casharo hor loo siiyaan maamulka Hargeysa oo markan dabanadiisu ay sugayaan darbaaxada ciidamada difaaca Puntland iminka cutubiyada difaaca Puntland waxa uu dhameystiran dhammaan saanadii dagaalka halka khubarada ciidamada difaaca Puntland ay dejinayaan naqshadihii iyo hanaankii lagu wajihi lahaa dagaalka ka dhanka maamulka Hargeysa oo gaashaan u ah argagixisada ragaadisay dhibaatada Soomaaliya ka taagan shacabka Puntland ayaa iyaguna isku wada soo dhaweynta madaxda qaranka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo taageerista ciidamada difaaca Puntland saacadaha iyo maalmaha soo socda ayaa la filayaa in ciidamada difaaca Puntland ay jawaab cad ka keenaan kuwa aadaystay dhibaatada ummadda reer Puntland